wardegdeg ah xiisadaadu culus ayaa ka taagan gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug caawa taas oo sababtay in dad badan oo shacab ah isaga barakacaan xaafadaha qaar ee magaalada gaalkacyo si gaar ah xaafadaha ay fariisimaha ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa BSF halka ay markaasi degan yihiin inta badan dadka shacabka ah ayaana isaga baxay gudaha magaalada gaar ahaan xaafadaha cabsida weyn ay ka taagan tahay ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntlandna ay fariisimaha ka samaysteen meelaha ugu cabsida badan waxaa ka mid ah nawaaxiga xerada Istanbul oo ay degan yihiin ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya si la mid ahna kuwa dowlad goboleedka Puntland ay dul degeen fariisimana ka dul samaysteen iyaga oo go'doomiyay gebi ahaanba xeradaasi waxaana laga cabsi qabaa in xeradaasi iyo nawaaxigeedaba uu dagaal aad u xoogan ka dhaca sidoo kale meelaha cabsida ugu badan ay ka taagan tahay dadka shacabkana inta badan markaasi ay isaga barakaceen waxaa ka mid ah baxsharka suuqa xoolaha markaasi ee magaalada gaalkacyo baxsharka waxaa agagaarkiisa markaasi degan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya inay ku biireen sheegtay iyo sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka Puntland maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ku daabuleysay oo iyaguna markaasi xeradaasi go'doomiyay saldhigyo iyo sidoo kale fariisimana markaasi ka dul samaystay si la mid ah xerada ciidanka BSF xaafadaha markaasi iyo sidoo kale dadkii ag deganaana waaxiga xaafadaasi ayaa gebi ahaan iyagana halkaasi isaga barakacay waxaan kula wadaagi doonaa guud ahaan xaaladii ugu dambeeyay barakaca ka soconaya xalay ilaa iyo caawa magaalada gaalkacyo cabsida xoogan ee ka taagan iyo suurtagalnimada dagaal halkaasi ka dhacay iyo cidda markaasi yeelanaysa mas'uuliyadda soo dhawow daawade muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo haddii aad horey noola joogto ku maadsantaha haddii aad nala jooginna nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran ee mar kasta hela wararka iyo warbixinada guud ahaan soomaalida iyo sidoo kale caalamka inta tabintan aynu ku guda jirno guud ahaan wixii soo kordha ayaan kula wadaagi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay magaalada gaalkacyana waxaan ka wareystay oo qadka telefoonka aan kula xiriiray waraysi koobanna aan kala yeeshay cabdicasiis farax markaasi saciid oo si dhow ula socday guud ahaan xaaladihii Puntland iyo dhaqdhaqaaqyadii ka soconayay magaalada gaalkacyo wahagaag xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa u muuqatay marba marka ka dambeysa ay kasii daraysa barakaca dadka shacabka ayaana xalay ilaa iyo caawa markaasi noqday hadalhaynta ugu badan ee gudaha magaalada gaalkacyo ka taagan dad badan oo shacab ah ayaa isaga barakacay xaafadaha ay degan yihiin ama fariisimaha ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada BSF halka ay degan yihiin kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay saldhigyo ay ka dul samaysteen ama ay dul degeen ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland xaaladdu waxay u muuqataa in marba marka ka dambeysa ay sii cakirmayso cabsi xoogan ayaana soo food saartay guud ahaan shacabka ku nool gudaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca maamulka Puntland uu ka arrimiyo oo dadkii shacabka ee deganaa nawaaxiga xeryaha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay isaga barakaceen maanta waxaa markaasi magaalada gaalkacyo gaaray isaga oo wata ciidamo aad u fara badan taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Puntland ninka lagu magacaabo Cabdi Xaashi isagoo markaasi gudaha magaalada gaalkacyo kulamo kula yeeshay saraakiisha amniga ee gobolka mudug iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka dowlad goboleedka Puntland oo kala hadlay xoojinta ammaanka iyo sidoo kale fulinta awaamiir madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu saraakiisha si hoose markaasi ula wadaagay xogaaynu heleen waxay tilmaamayaan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu amray weerar ballaaran oo kama dambaysa oo lagu qaado ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa BSF saldhigyada ay ku leeyihiin gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo markaasi lagu tilmaamay inay yihiin saldhigyo aan markaasi suuragal ahayn in gudaha magaalada gaalkacyo iyo deegaanada Puntland ay ku sii yaalaan madaxweyne Saciid saraakiishu amarka siiyo waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka daraawiishta taliyaha ciidanka BMPF taliyaha ciidanka birmadka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu amray fulinta amar degdeg ah ka hor intaan la gaarin 1 bisha August oo la qorsheynayo in la soo gabagabeeyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya safkeeda ku biiray ee ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo dowladda Puntland ay doonayso markaasi in joogitaankooda gebi ahaanba ay soo gabagabayso isla markaana meesha laga saaro tallaabadan waxay u muuqataa in madaxweyne Saciid uu ku doonayo inuu kaga hortago isballaarinta iyo sidoo kale saameynta dowladda federaalka Soomaaliya gudaha deegaanada Puntland